doorsoonka cimilo awgii qaab nololeedkii reer guuraaga waxa ku socday isbeddel weyn kaasoo nugleeyay oo adkaysigoodii iyo tabihii lagaga hortegi jiray xilliyada adag waxa kale oo sii badanaya barlaawannimadii xoolodhaqatanimada oo keeni karta inay ka siibtaan wax soo saarka wanaagsan ee xooluhu waxa uu ku tiirsan yahay fayaqaabka khayraadka dabiiciga ha yeeshee waxa uu u nugul yahay raadaynta doorsoonka cimilo si kastaba arrinku ha ahaadee waxaa jira in aanay u bannaanayn xoolodhaqatada kala doorasho kol haddii dhulka ay ku nool yihiin oo inta badan kaabi kara uun nidaamka xoolodhaqatanimo taas baana u horseedaysa iyagu inay ku jiraan xaalad nugulaansho haddaba si ay ula jaan qaadaan xaaladaha adag ee ku soo kordhay noloshooda waxay xilli horeba bilaabeen in ay isku dhaf dhaqaale abuuraan si ay u xoojiyaan noloshooda waana kuwan soo socda tusaalayaasha qaarkood caanadiiqid waayadii ama xilliyadii hore soomaalidu dhaqan uma ay lahayn caanadiiqasho waxaana loo yaqaanay inay tahay shaqo laga faano oo aanay gobonnimo ku jirin qof haddii lala xidhiidhiyo caanadiiqasho waxa uu ereygaasi u dhignaan jiray quursi caanaha aan la cabbin ama soo hadha waxaa had iyo jeer la siin jiray socotada sahanka iyo dadka baahan dhulka miyiga ah ee qoysas wada yaaliin waxay ahayd mas-uuliyadda dumarku in ay qayb caanaha ka mida ku deeqaan ururiyaan weelna ku kaydiyaan hoos dhigaan geed hadhaca iyagoo ugala jeeda haqabtirka baahida socotada daalan ee harraadan dumarku si ay isugu buriyaan bixinta caanahaasi waxay odhan jireen tii ugu dambaysaay dabaqambool tii badisaay adhigu kuu baday tii la bakhayshaay arigu kaabax baryahan dambe se caanadiiqiddu waa shaqo aad u habaysan oo xidhiidh fog ku leh gudaha deegaanada kala duwan marka la eego soo ururin celinta weelka iyo xisaab celintaba caanadiiqashadu waxay si xawliya ula sii korodhay korukaca tirada dadka ku nool magaalooyinka waxaana ay saamayn taban arrintani ku yeelatay baahidii nafaqo ee carruurta dumarka urleyda iyo waayeelka ku noola dhulka miyiga si kastaba ahaatee caanadiiqashadu waxay qayb wax ku oole kaga jirtaa haynta iyo dakhliga qoysaska xoolodhaqatada sidaasi awgeed qoysas badan ayaa ku dadaala inay helaan neefaf caanaha badan laga dhiijin ama maali karo halkii ay hore xoogga u saari jireen neef hilboon ama shilis si uu lacag wanaagsan ugu gooyo ama u baxo